nolosha ayaaba qaabkan u abuuran. Si kedisa ayay madaxa baac ula gashay. Kadib waa laga kala cararay oo mid kastaba waa ka kala cararaya. Iyaduna way yaaban tahay walow ay ka dhaxargayso u tagay isleedahay. Way u joogsan laayihiin oo way kala cararayaan. Waana casharkii ugu qiimaha badnaa ee kula wadaagi lahaa isla toddobaadkan. Marka aad ka duwan tahay isla iyaka. Marka aad ka duwan tahay fikriyan, aqliyan, cilmiyan way ka kala carari doonaan oo kuma joogsanayaan. Marka ay dhibaato ku haysato sidoo kale way ka carari doonaan oo kuma joogsanayaan. Nolosha ayaaba qaabkan u abuuran. Adoo badhayn wayba xun yihiin ama wayba kugu xumaynayaan. Waa habka ay noloshu u samaysan tahay. Markasta lama ogolo ikhtilaafka. Markasta lama ogolo ka duwanaashada. Waxaad isku daydaa inaad adigu is aragtid, is aamintid, adigu aad istaysid. waxba kaama gelin sida ay iyagu ku arkayaan. waxba kaama gelin sida ay iyagu kula rabaan ama goobaha ay rabaan inaad ka soo muuqatid. kaliya taada ayaa muhiima. dhis maskaxdaada, dhis caqligaaga, xalli mushkiladahaaga oo ku xalli isla gacmahaaga. taasina waxay ahayd farriin yar oo gaaban oo kusoo dhex mariyay isla fiidiyogan. haddii ay macno ku samaynayso la wadaag walaalahaaga kale. waxaa dhici kara walaal xaalkan oo kale ku sugan la dhibaatoonaya su'aalo iska weydiinaya noloshana cidhiidhi dareemaya inuu la kulmo isla fiidiyogan oo uu ka dhamac qaato noloshiisana wax badan ka saxo. sidoo kale igu dhiirigeli fulowda iyo sheerta iyo layga iyo falcelinta waayo wax badan ayay ii tarayaan. wax badanna waa soo gudbin karaa. mahadsanid.